sheeka jirtay ahayd nin boqora ayaa wuxuu u shaqayn jiray dad badan. Boqorku waa nin lacag leh oo aad u taajira. Waxaa ka mid ahaa dadka u shaqeeya wiil dhalinyaro. Wiilkaasi subax walba wuxuu yimaadaa boqorka. Waxaanu ku yiraahdaa boqor waxaan kuu sheegayaa laba kelmadood oo kaliya iga dhageyso. Waa laba kaliya. Kadib boqorku uu iska dhageystaa wuxuu ku yiri boqorow nin xumaantiisa ku filan nin wanaagsan wanaaji uu iska tagaa. Ninka boqorka isagu hadalladan iyo waxaan waa nin maalqabeena nin dhergay oo caafimaadkiisu 600 yahay oo halka ka xoqanayo isagu hadal iyo waxaan nin karayaba maaha hay iska tag ku yiraahdaa. Kadibna waxa dhacay maalin maalmaha kamida sidoo dhowr markuu ku soo noqnoqday boqorka subax walba uu yimaado ninkii gaarka boqorka gaarkiisa ahaa ee guriga ilaalinayay ayaa damac galay wuxuu yiri ninkan maalin walba boqorku lacag soo siiyo wiilkan dhalinyarada kadibna wuxuu ku yiri lacagta boqorku ku siiyo wax iga sii wiilkii dhalinyaradiina wuxuu sheegay in aanu boqorku wax lacag sii kadibna ninkii gaarka aad buu uga xumaaday waxaanu damcay inuu kala dilo boqorka iyo wiilkan dhalinyarada dabeetana wuxuu sameeyay qorshahaas oo ahaa maalin buu boqorkii u tagay waxaanu ku yiri boqoroo wiilka dhalinyarada ku yimaada maalin walba uu ku xantaa sidaynu ka warqabnana boqorrada iyo dadka lacagta leh ama dadka xukunka haya dhagdhagaynta iyo waxyaabaha aad u jecel yihiin qof wax soo dhagdhagay oo ay ku guuraan kadib wuxuu yiraahdaa buu yiri boqorka afkiisu uu uraa wuxuu yiri ninkii waxaan kuugu cadeynayaa beritoole markuu ku yimaado beritoole subax markuu ku yimaado sanku ka qabsan doona ama afku ka jeedin doona kadib sidii uu kaga tagay subaxnimadii markii wiilkii dhalinyaradii gurigii soo galay boqorka ayuu ninkii gaarka ahaa u yeeray waxaanu ku yiri kaalay cuntadan ila cun waa cunto uu sii diyaariyay oo uu ku soo badiyay basasha iyo toonta kadib cuntadii buu la cunay markay cuntadii ka farxasheen ayuu wiilkii dhalinyaradii dareemay toontii basasha ka wareysay wuxuu toontii basasha bay ga wareysay maxaan sameeyaa ninkiina waa qorshe uu sii dajiyay ninkii gaarka ahaana waa qorshe uu sii dajiyay wuxuu ku yiri boqorkuna waliba uu necab yahay toonta iyo basasha iyo waxyaabaha kadibna wiilkii dhalinyaradii wuxuu yiri maxaan sameeyaa wuxuu ku yiri waxaad sameeysaa markaad boqorka u galaysid sanka isqabo ama afka ka meermeeriyo sidaadhe waa qorshiyuu markii hore sii degay wiilkii dhalinyaradii gurigii boqorku sidii ku galay sidii baan u sameeyay boqorkii aad buu uga xumaaday waxaan u dhiibay warqad uu ku qoray raashin badan iyo sonkor iyo caano iyo wax walba wuxuu ku yiri hoo meel heblaay la meeshan loo diray waa meel alam daqool isku ridoon cidna ka soo noqonin oo uu ku daayay leeyahay ninka soo dirtay uu ku daayay boqorku wuxuu doonay inuu wiilkan dhalinyarada dilo kadib isagoo wiilkii dhalinyaradii la sii baxay warqadii sidan u eegay yaaban ayuu ninkiisa uga qaaday markaasuu eegay markaasuu raashinka kula qaybsanaya markaasuu wiilkii yiri dawaab u baday inuu ku filayay maxaa ku waalay dabeetana ana inoo soo qaaday wiil meeshii buu tagay ninka laftiisu kama warhayo ninkii gaarkii waa sidii lagu dilay subaxii dambe ayuu ninkii dhalinyarada boqorkii u yimid boqorkii baa yaabay ninka warqad u qoray maana war maxaa ku helay soo warqad ku qoray markaasuu boqor warqad gaarkii ninkii gaarka bay ka qaaday oo isaga yiri raashinkan ay noo doonay boqorku uu yaabo wuxuu gartay ninkaas inuu khiyaamo laha waxaan u yiri kelmadda oran jirtay maxay ahayd wuxuu ku yiri kelmadii aan ku oran jiray waxay ahayd nin xumaantiisa ku filan nin wanaagsan wanaaji sidaas dhacday ninkaasi wuxuu igu yiri ninkan uu ku xantaa waxaan ay cadaatay inaanu xaman jirin ee uu adiga xaasid kugu ahaa xaasidnimadiisina uu helay dabeeto sidii buu ku abaal mariyay wiilkii dhalinyarada ahaa duucada sheekadu waxa weeyaan markasta daacad ahaw nolosha qofka daacada waa la ciriiriyaa waa la riixaa waa la dhibaa laakiin aakhirka isagu ma guuleysta waqtii Soomaalida oran jirtay muhim gowda daacad ama sir maqaba Allah u sahana marka ha moodin qofka daacad oo leeriyay hadda aragtid in xaqii uu dhacay ama xaqa markasta uu hooseeyo weligiiba dulmigu sunaha nolosha ka mid tahay in dulmigu uu raago muddo badan uu jiro laakiin aakhirka xaqa sareeya ama daacadnimada sareysa